habka kala dheeraynta ilmaha ee naasnuujinta. Habka isticmaalka naasnuujinta ee kala dheeraynta ilmuhu waa hab ilmaha loo kala dheereeyo oo ku meel gaadh ah. Waxa ay shaqaysaa oo keliya 6 bilood ee ugu horeeya marka ay hooyadu dhasho. Waxaa loo yaqaanaa habkan lactation or amenorrhea. Marka habkan loo isticmaalo si joogto ah oo sax ah, habkani waxa uu u shaqeeyaa si wanaagsan. Habkani waxa uu si fiican uga shaqeeyaa hooyada ilmaha naaska keli ah nuujinaysa ee aan cunto kala siinaynin ilmaha. Haddii ay hooyadu caanaha naaska lisayso amaba ilmaha la siinayo caanaha loo yaqaano formula ama waxyaabo kale oo cunto ah, habkani si fiican uma shaqaynayo. Si uu habkani si wanaagsan ugu shaqeeyo, hooyadu waa in ay naaska nuujiso ilmaha 4 saacba mar maalintii. Habeenkiina ay naaska nuujiso 6 saacba mar. Marka ay hooyadu naaska keli ah jaqsiinayso, jidhku ma soo saaro hormoonada loo baahan yahay si uu ukunta u sameeyo. Markii uunan jidhku ukunta samaynin, hooyadu uur ma qaadi karto. Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in habkani uu yahay oo keli ah mid ku meel gaadh ah. 6 bilood dhalmada kadib, hooyadu waa inay raadsato hab kale oo ay isticmaasho si ay ilmaha u kala dheerayso, sababtoo ah habkani ma shaqayn doono 6 bilood kadib dhalashada. Sidoo kalena habkani kama hortago iska ilaalinta cudurrada galmada lagu kala qaado. Hooyadu inta badan waxay u badan tahay inay uuraysato isla markiiba marka ay joojiso isticmaalka habkan kala dheeraynta ilmaha ee naasnuujinta la isticmaalayay waa hab bilaash ah oo ay heli karto hooyo kasta oo naasnuujinaysa isla markaana caano leh. Waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mid ah inaad la shaqayso shaqaalaha caafimaadka sida shaqaalaha WIC programka ama dhakhtarkaaga. Inaad la shaqayso shaqaale xirfad u leh waxay kaa caawin inaad habkan si sax ah u isticmaasho. Si aad u barato warbixin dheeraad ah, waxaad daawan kartaa fiideo ay samaysay Align Health, Welshare International iyo qaybta caafimaadka ee Minnesota. Linkiga fiidiyogan waxaad ka heli kartaa hoos.